ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta magaalada Muqdisho kaga qayb galay kulan lagu daafurayay golaha dhaqaalaha qaranka dalka ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kulan looga hadlayay dib u dhiska dalka oo ay ka qayb galayeen wasiirada wasaaradaha howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 6aad ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya oo la sheegay in horey uu dil u geystay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa maanta dhagax dhigay dhismo iyo dayactir la doonayo in la saaro wadada laamiga ah ee horumarta xeebta Liido degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir taasi oo burbur ka muuqanayay. akhbaraadka dibaddana waxaad ku daawan doontaan maanta waxaa la filayay in la caleemo saaro madaxweynaha dalka Zimbabwe Master Mnangagwa waxaana hakad la geliyay xafladda caleemo saarka madaxweynaha kadib markii dacwad ay soo gudbiyeen kooxaha mucaaradka ee dalkaasi. qubanayaasha ciyaaraha iyo ganacsiga qayb ayuu ka yahay warkeena qodobada aad ku daawan doontaan hadduu Ebraali ka noqdo. waa 11 bisha Agoosto sanadka 2018 intaasi oo daawateen waxay ahaayeen qodobada warka caalamka kuwa ugu waaweyn markana ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan lagu daafurayay golaha dhaqaalaha qaranka dalka ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee dalka Soomaaliya. kulanka maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka mudane Xasan Cali Khayre ayaa ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay xafladda maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. hadal ayuu goobta ka jeediyay waxaana uu ka warramay muhiimadda golahan loo magacaabay. waxaan aaminsanahay maantay inkastoo ay dhib tahay in dadkoo dhan laga dhaadhacsiiyo inay maalin weyn u tahay ummadda Soomaaliyeed. sanad ka hor iyo xoogaa markii aan shaqada bilownay waxaa dhibaato noqotay inaan ku qancino dadka Soomaaliyeed ajendaha ugu weyn ee dawladdu yeelanayso waxay tahay inaan ka shaqeyno arrimaha dhaqaalaha, inaan ka shaqeyno in deynta mustaqbalkana la ka cafiyo, inaan ka shaqeyno nidaam daahfuran oo isla xisaabtana, inaan ka shaqeyno inaan aqbalno meel musuqmaasuq ka jiro inaan horumar aan yeelanayn. sanad iyo bar kadib waxaan aaminsanahay tusaale inay tahay shaqada maantay halkan ka socota inay tahay annaga keliya ma ahan laakiin aqoon-yahanadii halkan ka hadlay iyaga laftooda maanta inay arkaan tallaabooyinkii aan qaadnay sanad iyo bar ka hor inay yihiin inaan rabno inaan ummadda Soomaaliyeed ee naga dambaysa aan wax uga tagno, inaan dhisno dal ka duwan kii hore. dhisidda golaha dhaqaalaha qaranka ma aha keliya inaan rabno inaan dhaqaalaha wax ka qabanno, ma aha inaan dalkeenna horumarino, waxay tahay inaan aqbalnay in nagala shaqeeyo dalka inaan wax ka qabanno, waxay tahay inaan aqbalnay inaan buugaagteenna furno, waxay tahay inaan aqbalnay in nalala fiiriyo haddii laalaab iyo khiyaana jirto in wax laga qabto, waxay tahay inaan aqbalnay maadaama aan rabno inaan dunida dib u falgalno in aan aqbalno dadka aqoonta u leh inay noo yimaadaan ay nagala shaqeeyaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay xaflad lagu daafurayay golaha dhaqaalaha qaranka dalka ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka ayaa wada dadaalo rasmi ah oo la doonayo sidii dib loogu soo celin lahaa bilicda caasimadda. wadooyinka qayb ayay ka tahay howlaha maamulka gobolka Banaadir uu ku doonayo sidii looga qayb qaadan lahaa bilicda magaalada Muqdisho. haddaba gudoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay wada dhismo la doonayo in laami lagu saaro taasi oo horumarta xeebta Liida degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir. waxaana sidoo kale wadadan ay horumartaa safaaradda dowladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho. tallaabada dayactirka iyo dhismaha wadadan ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa ay ku sheegay inay qayb ka tahay sidii kor loogu sii qaadi lahaa dhismaha iyo dib u soo celinta bilicda caasimadda dalka.
waddadanna sidoo kale waxay qayb ka ahayd waddooyinka ay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha ee gudaha magaalada ka dhex shaqeeya gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa goobta ka hadlay waxaana uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid maamulka gobolka banaadir uu dhabarka ugu xiranayo sidii bilicda caasimadda kor loogu qaadi lahaa sidii bilicda magaalada loo soo celin lahaa isla markaana waddooyinka aan aaminsannahay inay muhiim u yihiin kobaca dhaqaalaha siiba waddadan liida kuma sii jirto waa waddo runtii dhallinyarada iyo carruurtaba xeebta liido aad taqaanay ay ku soo damasha tagaan waa waddo muhiim u ah ganacsatada oo ganacsato badani ay joogaan waa waddo aan isleenahay dhismaheedu wuxuu qayb weyn ka yahay dib u kabashada dalka dib u soo celinta bilicda magaalada muqdisho iyo horumarka mudan ra'iisul wasaare waxaan kaaga mahadcelinaynaa sidaad mar walbaba u garab taagan tahay mashaariicda horumarineed in dalkoo dhan laga hirgeliyo gaar ahaan mashruucan isaga ah 25% ee qarashka ku bixi lahaana inaad adiga maaragtay noo bilowday annagana annagoo kaashanayno maamulka iyo shacabka iyo ganacsatadana aan rajaynayno inta dhiman inaan dhammaystirno waddadan waa waddo halkan ka bilaabanaysa ilaa iyo isgoyska kaaraan ku tegaysa oo 2 kiiloomitir ah waxaan rajaynaynaa mar allaale markay waddadan dhammaatana in ummaddu ay arki doonaan sidoo kale maamulka gobolka banaadir waddadan waa waddadii shanaad muddo 6 bilood ah aan dhisayno taasna waa dardaarankii adiga iyo madaxweynaha ee ahaa in dawladda hoose ay noqoto dawlad hoose shacabka u adeegta shacabka ku xiran isla markaana ka warqabta sidii muxuu ahaa kaabayaashii dhaqaalaha loo horumarin lahaa mar kale aad iyo aadaan kaaga mahadcelinaynaa mudan ra'iisul wasaare waxaan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatadana in ay waddadan waxaan rabnaa in wax soomaali leedahay ay noqoto soomaali dhisato inaad kaalintiina ka qaadataan oo barnaamijka iskaax u qabso ee socdana ay ka mid noqoto aad iyo aad umahadsantiin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso ayuu kaasi ahaa uu ka hadlayay madal dhagax dhig lagu sameynayay dayactir iyo dhismo la doonayo in la saaro waddo laami ah oo la filayo in laga hirgeliyo xeebta degmada lido ee gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma caamir cumar shakeyti ayaa maanta xarunta cisbitaalka jaziira degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxa ay kaga qayb gashay kulan lagu soo bandhigayay in ka badan 200 qof oo la doonayo in indhaha loo fiiqo dadkan ayaa laga kala keenay degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolada deris kale ah gobolka banaadir sida shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe madasha lagu daafurayay mashruucan indhafiiqista ah ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada warta nabadda ee gobolka banaadir sidoo kale madaxda deegaanka kaxda ee gobolka banaadir ayaa iyaguna ka mid ahaa xubnihii goobta ku sugnaa maadaama inta badan dadkan laga keenay degmada kaxda haddaba gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir basma caamir cumar ayaa goobta ka hadashay waxaana ay sheegtay xilligan in loo baahan yahay in la caawiyo dadkan ku dhibaataysan gudaha caasimadda gaar ahaan dadka la doonayo in araggooda dib loogu soo celiyo waxaana qoys ka kooban ilaa 6 qofood ay ka mid yihiin dadka iminka arag la'aanta ay haysato oo la doonayo in araggooda dib loogu soo celiyo kadib qaliinka loogu sameynayo xarunta cisbitaalka jaziira ee magaalada muqdisho waxaa meeshaan isbitaalka jasiira ku sugan ugu yaraan 350 qofood oo loo samaynayo deeq caafimaad lacag la'aan ah oo indhafiiq ah waa ogtahay qofka bini'aadanka waxa ugu muhiimsan xubnihiisa waa aragga aan la soo koobi karin aragga qofka bini'aadanka hadduu haysanin waxaan ugu mahadcelinayaa dhaqaatiirta is soo xilqaamay oo sameeyey barnaamijkan inay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ee si lacag la'aan ah ay ku daaweeyaan ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka gobolka banaadir oo u horeeyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho meeshaan waxaa ku sugan 170 ruux oo ka timid degmada kaxda dadkii deganaa ah 30 ruux oo degmada kaaraan ka timid iyo gobolada dalka aan diriska nahay hiirshabeelle iyo koonfur galbeed waxayna rajaynaynaa inta hadda la sheegay wajiga koowaad in lagu qaabilay ee tahay 700 qofood oo indhaha loo fiiqo si lacag la'aan ah waxaan leenahay dhaqaatiirtii wadanka wax u soo qabtay waajibaadka alla saaray inay gudanayaan ummadda Soomaaliyeed marka waxaan ka rabnaa dadka dhibaataysan oo u dhibaataysan ama caafimaad darro ama haday noqon lahayd dhibaato kale oo jiro inay ka warhaayaan walaalka dhibaataysan qof kasta muwaadin Soomaaliyeed inuu wax u qabto meeshaan waxaan ku arkay maanta
qoys dhan oo indho la'aan ah hooyadii aabbaha aana ka ahayn 5 gabdhood iyo wiil aanan wadanka hadda wax loogu qaban karin laakiin dhaqaatiirta ay sheegeen inay ku dadaali doonaan insha Allah waxaan kaloo ku arkay cunug yar oo wadnaha duleelo oo indhaha la araga la qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed wuxuu alla ku dhiibo ugu gargaar walaalkaaga ganacsatada sidoo kale ganacsatada waxaan u sheegaynaa walaalaha dhibaataysan ku nool Soomaaliya inay wax u qabtaan annagana maamul gobol banaadir ahaan waxaan qaban karnaa in la karaankeena cid walba la kaashan doono insha Allah waa la kaashaneena waxaan rajaynaa mashruucan inuu yahay mashruuc weyn oo loogu talagalay 700 qafood degmooyinka gobolka banaadir dhammaan waxaan u sheegaa inay ka faa'iideystaan ee ugu faa'iideeyaan dadka dhibaataysan ku nool degmooyinka inay ka warqabaan ee tagaan ee qofka aan awoodin indhaha inuu iska fiiqo oo u baahan daawo in la soo xiriiro oo la keeno isbitaalkan Al-Jazeera gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir Basma Camar Cumar Shakeyti ay taasi ahayd oo maanta warbaahinta kula hadashay xarunta isbitaalka Jazeera ee magaalada Muqdisho oo ay ka warbixinaysay in ka badan 200 qof oo caruur iyo dad waayeel isugu jira oo la doonayo in indhaha loogu fiiqo xarunta isbitaalka Jazeera degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan xilka qaadis ku sameeyay xubnihii golaha wasiirada iyadoo qaarkood xilalka ay waayeen halka kuwa kalena la soo magacaabay haddaba si looga dhaweeyo howlaha loogu jaanqaadayo sidii looga dhaweyn lahaa howlaha la doonayo in dalka loogu adeego ayaa haddana xubnihii golaha wasiirada ee dhawaan xilka qaadista uu ku sameeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxay bilaabeen in xilalka ay kala wareegaan muqdisho maanta waxaa lagu qabtay xaflad ay xilalka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda Soomaaliya iyo midka cusub oo dhawaan la soo magacaabay wariyahayaga Sakariya Timacade oo ka tirsan Universal TV ayaa xafladaasi xil wareejinta ka qayb galay oo warbixintan soo socota inooga diyaariyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay xaflad kooban oo xilalka ay ku kala wareegayeen wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasiirka cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda Soomaaliya taasoo lagu qabtay hool ku yaala xarunta wasaaradda ay ku shaqeyso wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xuseen ayaa ka hadlay waxqabadkiisa intii uu xilka hayay mudan wasiir mudanayaal waxaan kugu wareejinayaa wasaarad ay u dhammaystiran yihiin dhammaan kaabayaashii hay-adeed wasaarad ku guulaysatay inay xaqiijiso himilada qarankan uu lahaa wasaarad xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn la leh wasaaradaha dowlad goboleedyada hay-adaha madax bannaan ee ka shaqeeya caafimaadka xoolaha iyo hay-adaha caalamiga ah mudane wasiir mudanayaal maalintii aan xilka la wareegayay wasaaradda waxaan asteysay 2 hiigsi oo ugu waaweyn oo tiir u ah wasaaradda shaqadeeda kow horumarinta adeega caafimaadka xoolaha oo maanta aan kugu wareejinayo iyada oo si casri ah aan u qaabeynay waaxda caafimaadka isla markaana aan dhisnay shaybaarkii dhexe ee xanaanada xoolaha wasiirka cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in mar kale wasaaraddan uu dib ugu soo laabto maanta waxaa farxad weyn ii ah runtii muddo 6 sano kadib inaan dib ugu soo laabto wasaaraddan hadda ka hor aan joogay 2012kii iyada iyo wasaaradda beero isku jirta annagana waxaan ballan qaadaynaa siduu wasiirka sheegay horumarkii la sameeyey inaan meeshiis ka sii wadno oon sii horumarino caafimaadka xoolaha aan casriyeyno qaabka maxjarada ka jira waddanka si maaragtay wada jir ahna annagoo la kaashanayna madaxda dowlad goboleedyada wasaaradaha iyo madaxda dowlad goboleedyadaba in la horumariyo maaragtay caafimaadka xoolaha iyo sidii u mari lahaayeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed ayaa u ballan qaaday wasiirka cusub inay la shaqeyn doonaan isaga iyo wasiirkii hore ee xanaanada xoolaha horumarinta xoolaheena in ganacsiga oo lafdabarta dhaqaalaha Soomaaliya weligeed bana ahaa imikana uu yahay xoolaha nool sidii aanu ugu fikir lahayn inaynu horumarino xoolaha nool habkii hore ee dhoofintana wax badan aynu ka bedelno wax tar inoo yeelan kara xoolo caafimaad qaba maxsharada xoojino oo aynu qoweyno nidaamkii iyo shuruucdii iyo loo baahnaa la sii xoojiyo la dhiirigeliyo maslaxyada si haraggii looga faa'iideysan karo hilibkii looga faa'iideysan karo Zakariya Maxamuud Timacade Universal TV Muqdisho
dowlad kasta oo caalamka ku taalla waxaa saldhig u ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dib u dhiska. dalka Soomaaliya ayaa xilligan sameynaya horumar baaxad weyn oo dhinac kasta marka loo eego dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan ay ka qayb galayeen wasiirada wasaaradaha howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka Soomaaliya. qodobadii ugu waaweynaa oo ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa dib u dhiska dalka Soomaaliya. Qadar Cabdi Cali ayaa inooga waramaysa. shirkaani ayaa ahaa mid wada tashi ah waxaana isugu yimid wasiirada howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedyada dalka iyo tan dowladda federaalka iyadoo diiradda lagu saarayay dib u dhiska ka socda dalka sida lagu horumarin karo iyo weliba xoojinta xiriirka wasaaradaha howlaha guud iyo kuwa maamul goboleedyada. markii uu dhammaaday shirkaani qodobadii ka soo baxay waxaa warbaahinta u akhriyey wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesay. shir wada tashiya aanu ku lahayn magaalada Muqdisho. shirka wada tashiga waxaa looga gol lahaa oo ujeedku u ahaa ay isugu yimaadeen wasiirada ka socda ee dowlad goboleedyada in iskaashi iyo isfaham iyo wada shaqayn ay ka dhalato wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradaha kale ee dowlad goboleedyada aan soo tilmaamnay ee dowlad goboleedyadaasi magacyadooda. shirka maalintii ugu horeysay wuxuu ahaa warbixin la kala dhageystay ay ka warameen wasiirada deegaanadooda iyo howlaha ka socda oo dib u dhiska dalka ay ugu muhiimsan tahay. kadib wasiirada waxaanu maaragtay wada tashiga oo gudubnay oon isla gorfaynay wada hadalkeennii ka soo baxay in si buuxdo loo wada shaqeeyo oo wasaaradda howlaha guud dowladda federaalka Soomaaliya ay liid u tahay wasaaradaha dowlad goboleedyada Soomaaliya. waxaa kaloo shirka ka soo baxay midnimo iyo iskaashi iyo wada shaqayn aad u muhiim ah maadaama wasaaradda howlaha guud ay tahay wasaarad halbowlaha u ah kaabayaasha dhismaha iyo dhaqaalaha dalka Soomaaliyeed. sidoo kale shirka waxaa ka soo baxay oo maaragtay warmurteedkeena maanta uu ku saabsan yahay in ay soo dhaweeyeen oo la isla qaatay shirkii sharciyeedkii ay golaha wasiirada dowladda Soomaaliya ansixiyeen lagu meelmariyey naqshadaynta iyo sharciga maaragtay magaaleynta oo sugaya in maaragtay baarlamaanka federaalka Soomaaliya in maxay ahayd uu ansixiyo. Qadar Cabdi Cali, telefishinka Universal, magaalada Muqdisho. aad bay u mahadsan tahay wariyahayaga Qadar Cabdi Cali oo inoo soo jeedinaysay kulankaasi looga hadlayay dib u dhiska dalka oo Muqdisho ay ku yeesheen wasiirada howlaha guud ee dalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho. goordhow waxaan gudagali doonaa hadduu Ibraale ka noqdo qubanayaashii ciyaaraha iyo ganacsiga wariyaasheenna Cabdishakuur Farax Cigalle iyo Mawlid Warsame Kulane. balse marka hore wararka caalamka. wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta halkaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 6aad ay ku toogatay askari la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada maamulka Koonfur Galbeed kaasi oo lagu eedeeyay in horey uu fal dil ah u geystay. warkaasi oo faahfaahsan hadduu Ibraale ka noqdo wariyahayna magaalada Baydhabo Muxuudiin Xusni ayaa inoo soo diri doona. wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan hadduu Ibraale ka noqdo. waddanka Zimbabwe wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in maanta waxaa loo ballansanaa in la caleemo saaro madaxweynaha dalkaasi Emerson Mnangagwa waxaana baaqatay xafladii caleemo saarka ahayd kadib markii kooxda mucaaradka ay soo gudbiyeen ashtako ay ku sheegeen natiijada doorashada ee dalkaasi ka dhacday. hogaamiyaha xisbiga MDC Nelson Kamisa ayaa sheegay in uu hayo cadeymo muujinaya in lagu shubtay codeynta doorashadii madaxtinimada ee dalka Zimbabwe ka dhacday 30kii bishii July. xisbigaasi ayaa ku andacoonaya in doorashada ay hareeyeen falal isugu jira xatooyo iyo musuqmaasuq. hase yeeshee guddiga doorashada ayaa dhankooda ku adkaystay in doorashada ay ahayd mid madax bannaan oo aan wax isdabamarin aysan ka dhicin.
master Mnangagwa ayaa guusha ay ku raacday codadka la tiriyey 5.8% waxaana musharaxaasi ku soo xigay master Kamisa oo isaguna helay 44.3%. master Mnangagwa oo ka tirsan xisbiga Robert Mugabe ee la yiraahdo ZANU-PF ayaa markii codadkiisu ay gaareen 50% waxa uu ka dalbaday in wareeg labaad oo doorashada la sameeyo isaga iyo Kamisa. caleemasaar kuma dhici doono waqti loo qorsheeyay ayuu yiri wasiirka cadaaladda ee wadankaasi Zimbabwe Sayembi waxaana uu hadalkiisa uu ka dambeeyay markii kooxaha mucaaradka ay jimciyaha dacwad ka gudbiyeen natiijada doorashada ee dalkaasi ka dhacday. dastuurka dalka Zimbabwe ayaa u ogolaanaya musharaxiinta xilka in ay dacwad ka gudbin karaan natiijada doorashada muddo 7 cisho gudahooda. maxkamadda dastuuriga ayaa hadda haysata 14 maalmood oo ay go'aan uga gaarayso dacwadan ay u gudbiyeen xisbiga mucaaradka oo la magac baxay dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee isbedel doonka ah ee MDC. xisbigan ayaa ku qasban in uu cadeymo ku filan uu u keeno wax isdabamarinta ay sheegeen in doorashada lagu sameeyey. haddii ay taasi ku guulaystaan waxay markaasi maxkamaddu ay amri doontaa in codadka dib loo tiriyo ama doorasho kale la galo. 2 maalmood kadib codbixinta doorashada ayaa ugu yaraan 6 ruux lagu diray isku dhacyo dhexmaray ciidamada ammaanka iyo taageerayaasha xisbiga MDC kuwaasi oo aaminsan in master Kamisa laga faramaroojiyay guusha dalkaasi Zimbabwe. waxaa jirtay rajo aad u weyn oo laga qabay in doorashada ay keeni doonto in isbedel buuxa kadib markii uu bishii November ee sanadkii la soo dhaafay uu dhamaaday xukunkii Robert Mugabe ee dalka Zimbabwe ka jiray 37 sano ee la soo dhaafay. dhanka kale xisbiga MDC ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay si arxan darra ula tacaaleen taageerayaashooda wixii ka dambeeyay markii uu soo baxay muranka natiijada doorashada dalka Zimbabwe. madaxweynaha cusub ayaa codsaday in lagu dadaalo nabadda isla markaana la sameeyo baaritaano madax bannaan oo ku saabsan natiijada codbixinta doorashada dalka Zimbabwe. waa 11 bisha Agosto sanadka 2018 warkii caalamka oo aad kala socoteen telefishinka Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho. waa naga intaa waxaa idiin waramayay anigoo ah